haweeney ayaa geeriyootay kadib isbuurasho ka dhacday xarunta cunto qaybinta ee xerada qaxootiga ee Futu. dad aad u fara badan ayaa isugu yimid xaruntaasi si ay u helaan gargaar cunto, waxaana la sheegay in ciriiriga iyo abaabul xumida ka jirtay halkaasi ay keentay isbuurashadaasi dhimashada sababtay. wakiilka haweenka ee ismaamulka Gaarisa Udgoon Siyaad oo tacsi u dirtay ehelka gabadha geeriyootay oo lagu magacaabo Khadiija Nuur oo 29 sano jir ahayd ayaa dhacdadaasi ku tilmaamtay mid laga naxo oo ay nasiib darro tahay in isbuurasho ay sababto dhimasho, gaar ahaan xilli la bixinayay gargaar bini'aadantinimo. Udgoon ayaa si gaar ah u eedeysay hay'adaha iyadoo tilmaamtay inaysan si habboon u maarayn habka qaybinta, taasoo keentay in dadka ishor istaagaan iyadoo aan la kala soocin kuwa nugul iyo kuwa kale. waxay sidoo kale sheegtay in dadka baahiyaha gaarka qaba loo baahnaa in saf gaar ah loo sameeyo si loo yareeyo halista noocan oo kaleeta ah. waxa aad iyo aad u murug badan in la qiimeyn waayo gabdhaha uurka leh iyo dadka lixaadooda ay dhameystirnaan iyo ilmaha yaryar qaybtooda markii dadka raashinka la qaybinaa in gooni igin loo istaajiyo waxooda gooni loo siin waayo. protocolka markii raashinka la qaybinayo maxaa ka mid ah in dadkaas loo dadaalo, dadka aad u tabaryar, dadka oo maxaa la dhahay gabdhaha xaamilada ah, dadka oo lixaadooda dhameystirnaan iyo ciyaalka yaryar in la isku qasin iyo dadka kale xoogooda qabo oo raashinkooda xoog ku boobayo. waxaan ka xumahay geerida gabadhaas, waxaan rabaa inaan u gudbiyo reeraheeda iyo ciday ka baxday tacsiyo oo inaan aad iyo aad ugu murugeysanahay. ilaahay jannada ka waraabiyo iyadii cunigeeda yar saqiirka yar oo iyada raacay. marka waxaan rabnaa inaan u gudbino dadka oo degan Ifo xaq waxay u leeyihiin in la siiyo raashinkooda iyagoo xishmadooda iyo dignitygooda la fiirinayo bini'aadanimada. kuwa UNHCR iyo WFP iyo dadka kale oo degan oo samafalka oo meesha joogo oo rabaan dadka inay wax u qaybiyaan, waxaan u gudbinaynaa inay accountability la sameyn doono oo aan ogolaani doonin in ay dadkaas meel cid lagu baabiyo lagu xasuuqo. aid kala siinayo ummadda Soomaaliyeed oo meesha joogta refugeeska iyo dadka kale oo nala joogo oo iyagana refugeeska ah oo deeqta loo gaarsiinayo maxaa waaye in noloshooda la ilaaliyo. cuntadaas ay siinayaan iyaga waxaa waaye noloshooda inay ku kabaan yay noqonin mid iyaga geeridooda soo dadejin doonto. digniin aan ka bixinaynaa in dadkaas oo investigation la sameeyo, gabadhaas reerkay ka baxdana xaqooda loo soo dhiciyo, ayna arrin noocan dib dambe ee uga dhicin Ifo iyo agagaarkeeda meel raashin lagu bixinayo. hadalkan waxaa yiiday qaar ka mid ah hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha. mar ay ka hadlayeen magaalada Gaarisa ayaa waxay dalbadeen in baaritaano degdeg ah la sameeyo iyagoo ballan qaaday inay kiiskan ka hari doonin. waa kan Mukhtaar Daahir Cusmaan oo ah gudoomiyaha ururka Gaarisa Women Rights Network, sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka Gaarisa iyo kooxda farsamada ee arrimaha jinsiga. So we are here today to totally condemn the concerned agency, that is WFP and DRC. waxaan halkan u joognaa maanta si aan si buuxda ugu cambaarayno hay'adaha ay arrintan khusayso, kuwaas oo kala ah WFP iyo DRS. dhacdadan aad bay u xumeed, waxayna ahayd mid laga hortagi karay. waa la og yahay in WFP ay leedahay siyaasado qeexaya in marka cunto laga qaybinayo xeryaha qaxootiga la tixgeliyo dadka nugul sida waayeelka, carruurta iyo haweenka uurka leh. hase yeeshee hooya ayaa dhacdadan ku dhimatay. ilaa iyo hadda ma arkin mana maqal wax bayaan oo arrintan kaga hadlay ama cambaareeyay oo ka soo baxay xafiiska UNHCR ama hay'adaha kale ee ilaaliya arrimaha badbaadada qaxootiga ee ku sugan xerada. hay'adaha mas'uulka ka ah xeryaha qaxootiga waa in ay difaacaan bulshooyinka nugul ee halkaas ku sugan. waxa aan ka sii walacsanahay maanta ayaa ah in dowladda Kenya iyo UNHCR ay mashquul ku yihiin shirka balan oo aan wax muhiim ah u hayn qaxootiga, gaar ahaan hooyooyinka danyarta ah. waxay hadda ku dhimanayaan goobaha cunto bixinta. marka maxay muhiimad ah oo leedahay shirka balan dadka qaxootiga iyo bulshada martida loo yahay? shirika plan to the refugees and the host community. geerida haweeneydan ayaa dhalisay dareen iyo walaac ballaaran iyadoo bulshada caalamka iyo hay'adaha ku lug leh gargaarka lagu wargelinayo inay dib u eegaan nidaamyada ay adeegsadaan xilliyada ay bixinayaan gargaarka si looga hortago dhacdooyin noocan oo kale ah mustaqbalka. isla warar haweenka la xiriira ayaan ku guda jiray, balse dhankaasi iyo Wajeer haweenka ganacsatada ah ee ka shaqeeya suuqa Dhiigle ee magaalada Wajeer ayaa ugu baaqay dawladda in si degdeg ah loo gaarsiiyo qaybtii ay ka lahaayeen deeqda madaxweyne William Ruto uu horey ugu ballan qaaday haweenka ganacsatada.
waxay sheegeen inay maqleen warar sheegaya in lacagtaasi ay soo gaartay magaalada Wajeer ha yeeshee aysan hubin in wax laga siiyey ganacsatada suuqyada hoose. haweenku waxay tilmaameen inay si weyn ugu baahan yihiin taageeridaasi si ay ganacsigooda ugu horumariyaan ogana baxaan caqabadaha dhaqaale ee ay wajahayaan. dhinaca kale waxay baaq u direen wakiilka haweenka ee ismaamulkaasi Wajeer Fatuma Jeexow iyagoo ka codsaday inay u ololeyso sidii haweenka suuqyada yaryar ay uga faa'iideysan lahaayeen barnaamijyada horumarinta iyo maalgelinta ee dawladda. ana waxa la dhaafaa Faadimo Koorar wajiib ku jiraanahay waxaan hadda u soo baxnay oo u baahanahay lacagta hadda madaxweynaha asbixi inaan nagula ogaado oo wax nagala siiyo in la bixi in kala war uma hayna laakiin waa iska bilcaanana waa iska dhiga taagayna dad oo waxaan ahaana rag loo bilcaan lahay oo iskiga baahan oo ogoon lah oo garoobo lah baayela iskiga jiro hilibka aan gadanaa waa sii karinaa Nairobi waan geynay dad horumar u socdo horumar inaa gaaro u baahanaanahay gabadhaayna Faadimo Jeexow qofka ugu horeeyay horta salaato nooga soo gal xaradan iyada ahayd qofka ugu horeeyay oo soo aqoonsado dhahay waxaan u baahanahay kure iyada ahayd kuri insha Allah Ilaahay baasi anagoo haween oo 36 naagood ah Faataxa 3 jeer u marnay gabadhaayna sida iyadaadna nooguma soo noqonin haddana ka jeelaweynaan xaggeeda ka qabnaa inayna soo aqoonsato oo iska aruurinayn 10 milyan bas madaxweynaha asbixi oo gabadha walaashaan xaggeeda hadda lagu soo sheegay aan xamashada aan maqlayna waxaan ugu baahanahay in taxgilis ay naga geliso gabadha dumaashada annaga waxaan rabnaa lacagta Ruto asbixi oo la sheegay annaga bilcaana anaanay waxba kama ogan laakiin waa u maqalnay hadda noogala soo dar lacag aan rabnaa oo nolol keena oo nolol geli bingigayna aan account-gayna in nolol geliyaan rabnaa markaan intaas Ilaahay weyno waxday gacanta in soo bixiyo gurigan xalaashe raga noo dhis bahilibley hadana waliba hooyo aanan bakeeri shaah ma kala cabna hal bakeeri aan isla cabna tii koob haysata koobkaas loo kala goyna timbarka cabbe. xildhibaanka bariga Sunna ee ismaamulka Migori gobolka Nyanza weeyane Junet Maxamed ayaa difaacay ama ka difaacay madaxweyne William Ruto eedemihii uu shalay u jeediyay xeer ilaalihii hore Justin Muturi kaasoo ku eedeeyay in xafiiska hogaamiyaha dalka uu ku lug leeyahay musuqmaasuq. Junet oo ka tirsan xisbiga ODM ee mucaaradka ayaa hoosta ka xariiqay in haddii Muturi uu hayo xogo dhab ah oo la xiriira musuq ay tahay inuu u gudbiyo hay'adaha baarista sida DCI-da iyo guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee EACC halkii uu saxaafadda oga hadli lahaa. Kuna jamaa anaitwa Justin Muturi ameongea jana, ameongea mengi sana, lakini hiyo mengi yapeleke kwa idara ya ujasusi ama kwa EACC wachunguze hiyo maneno, kwa sababu mimi pia nina mengi ya kusema juu yake. Mimi kabla ya uchaguzi ya 2022 alikuwa speaker yangu, nilimwendea nikaambia bwana speaker, si support baba yangu anataka kuwa president. Aliniambia afadhali hii mwizi yetu ambaye anaitwa Ruto kushinda baba yako. Sasa leo Ruto amekuwa mtu mbaya jameni kwake. xildhibaanka ayaa intaasi ku daray inuu wado mooshin oo baarlamaanka horgeyn doona si loogu yeero Justin Muturi oo horey u soo noqday wasiirka adeega dadweynaha si su'aalo looga weydiiyo musuqa la xiriira dhismaha Bunge Towers. wuxuu sheegay in intii Muturi uu ahaa afayeenka baarlamaanka uu si aan caadi ahayn uu sare ugu kacay qiimaha dhismaha xaruntaas. mashruucii markii hore loo qorsheeyay 6 bilyan ayuu sheegay inuu gaaray 27 bilyan taasoo ku tilmaamay arin u baahan in baaritaano isaga xitaa lagu sameeyo. Mimi kama mbunge nataka kuleta mswada nyingine. Yeye ameongea juu ya mambo yote, akuongea juu ya mambo moja. Kuna jumba hapo bunge inaitwa Bunge Towers ambayo kuna maofisi ya wabunge. Hiyo nyumba wakati tumekaa chini kama wabunge ilikuwa inafaa ijengwe na 6 billion. Wakati Muturi anatoka kwa ofisi, hiyo jumba ilijengwa na 27 billion. Hapo pia afafanulie sisi kidogo ili tujue hiyo jumba imetoka 6 billion namna gani na ikafika 27 billion. Fafanua hiyo pia. Inkastoo uu Junet sheegay in dhismaha xarunta Bunge Towers lagu dhisay 27 bilyan, warbixino madax banaan oo Radio Horn Africa ay daba gashay waxa uu muujinayaa in qarashka dhabta ah ee lagu bixiyay uu gaarayo 9.6 bilyan oo shilin. xaruntaasi Bunge Towers waa xarun ay inta badan xafiisyo ku leeyihiin xildhibaanada baarlamaanka. hadalkan Junet Maxamed ayaa imaanaya xilli Justin Muturi
wasiirkii hore ee adeega dadweynaha uu si toos ah u weeraray madaxweyne Ruto isagoo ku eedeeyay inuu yahay hogaamiye musuqmaasuq uu saldhig u yahay isla markaana aan dalka si hufan u hogaamin karin. madaxa golaha wasiirada Musalia Mudavadi ayaa maanta si rasmi ah u qaabilay la taliyaha sare ee Mareykanka ama la taliyaha sare ee madaxweynaha Mareykanka u qaabilsan arrimaha Afrika Masad Bulus oo hogaaminayay wafdi heer sare ah oo booqasho rasmi ah ku tagay xafiiskaasi. kulankan muhiimka ah ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka labageesoodka ah ee u dhexeeya Kenya iyo Mareykanka iyadoo mudnaanta la siiyay arrimaha nabadda, xasiloonida gobolka iyo iskaashiga horumarineed. Mudavadi oo si qoto dheer ugu mahadceliyay dowladda Mareykanka taageerida joogtada ah oo ay siisay Kenya, gaar ahaan aqoonsiga dadaalka muuqda ee dowladda Kenya uga jirto dhexdhexaadinta, nabadeynta iyo dib u heshiisiinta dalalka ay colaaduhu saameeyeen ee gobolka Bariga Afrika. wuxuu xusay in Kenya ay hore uga qayb gashay 43 howlgal nabadeed oo caalami ah tan iyo xornimadeedii, taasoo cadeynaysa doorkeeda firfircoon ee nabad dhisidda, iyadoo wada hadaladii dhowaan ka dhacay magaalada Nairobi ay muujinayaan siday uga go'an tahay in la helo xal waara. dhankiisa la taliye Masad Bulus ayaa adkeeyay in Mareykanka uu si buuxda u garab taagan yahay dadaalada Kenya ee lagu xalinayo gobolka, isagoo tilmaamay in Mareykanka uu Kenya u arko lamaane istiraatiiji ah oo hormuud u ah siyaasadda nabadeed ee Afrika. wuxuu intaasi ku daray in booqashadiisu tahay mid lagu dardargelinayo dadaalada nabadeed ee Afrika iyo kobcinta maalgashiga Mareykanka, gaar ahaan dhinacyada ganacsiga, waxbarashada iyo horumarinta bulshada. ka dhagayso wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka mowjada 105.6 Radio Horn Africa codka shacabka. madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gaaray magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda, halkaasi oo uu kula kulmi doono dhigiisa Uganda Yoweri Museveni. booqashada shaqo ee uu madaxweynaha ku tagay dalka Uganda ayaa ujeedadiisu tahay sidii loo dardargelin lahaa dadaalka lagu ciribtirayo kooxaha loogu yeero argagixisada, iyadoo labada madaxweyne ay sidoo kale ka wada hadli doonaan xoojinta xiriirka labageesoodka dhinacyada badan ee taabanaya labada dal. maalin ka hor ay ahayd markii madaxweyne Xasan Sheekh uu safar kaga soo laabtay magaalada Djibouti ee dalka Djibouti, isagoona halkaasi kulamo kula soo qaatay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geele, iyagoona ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo qodobo kale, waxaana ka soo wareegatay muddo 48 saacadood oo keliya. dhinaca kaleetana madaxweynaha Soomaaliya inta uusan u bixin magaalada Kampala wuxuu shir gudoomiyay kulan ay ka qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada Koonfur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug. kulankan ayaa hordhac u ah dadaalada lagu mideynayo shacabka si loo dardargeliyo howlgallada ka dhanka ah Al-Shabaab. kulanka ayaa diiradda lagu saaray dagaal ka socda, iyadoo madaxweynaha uu ammaanay kaalinta ay madaxda maamuladaasi ka qaadanayaan abaabulka iyo isku dubidda howlgallada. waxaa sidoo kale lagu lafaguray diyaarinta gogasha qaran ee uu dhowaan ku baaqay madaxweyne Xasan Sheekh. madaxdu waxay isla qireen in guulaha laga gaaray dagaalka, sidoo kaleetana ballan qaaday in lasii xoojinayo wada shaqaynta shacabka, in dheergaradka iyo hogaamiyaasha si halgankaasi loo gaarsiiyo heer dhammaystiran. madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed iyo gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe ayaa si wadajir ah uga tacsiiyay geerida gaashaanla sare Nuur Maxamed Gaabow Nuur Ferey, taliyihii guutada 14 Oktoobar ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya, kaasoo lagu dilay deegaan u dhaxeeya Afgooye iyo Laanta Buuro ee gobolka Shabeellaha Hoose. mas-uuliyiinta ayaa ku tilmaamay marxuumka mid ka mid ah saraakiishii firfircoonaa ee door muuqda ku lahaa dagaalka dalka lagaga xoreynayo kooxaha Shabaab, isagoo si hagar la'aan ah ugu deeqay ama ugu adeegayba shacabka iyo qaranka Soomaaliyeed. waxa ay sheegeen in Nuur Ferey uu lahaa hogaamin ciidan oo muuqda, isla markaana uu ku suntanaa adeeg, daacadnimo iyo hoggaan mas'uuliyad leh. Sheekh Shariif ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda ay leedahay in si degdeg ah oo daah furan loo baaro dilka, si sharciga loo horkeeno cid kasta oo ka dambeysay falkaasi. dhankiisa gudoomiyaha Sheekh Aadan Madoobe ayaa Allah uga bariyay in uu marxuumka naxariistiisii janno ka waraabiyo, ehelkiisa iyo shacabka Soomaaliyeedna samir iyo iimaan ka siiyo.
geerida taliyaha ayaa si weyn u taabatay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed maadaama uu ka mid ahaa saraakiisha hormuudka u ah dagaalka lagula jiro al-shabaab gaar ahaan furiimaha gobolka Shabeellaha Hoose. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sabtidii sheegay in dagaalka ganacsi ee dalkiisa uu la galay qaar ka mid ah saaxiibadiisa ganacsi uu ugu dambeyn u roonaan doono Mareykanka inkasta oo uu qiray in geedi socodkan uu noqon doono mid adag oo u baahan adkaysi. Trump ayaa qoraal uu soo dhigay baraha bulshada ku sheegay in Shiinaha ay qaaday tallaabooyin ka culus kuwii Mareykanka balse waxa uu adkeeyay in Mareykanka uu si xoogan u soo kabanayo isagoona sheegay inay dib u heleen shirkado iyo fursado shaqo aan horey loo arag. wuxuu intaasi ku daray in tani ay tahay kacaan dhaqaale oo uu Mareykanka ugu dambeyn ku guuleysan doono. Trump ayaa intaasi ku daray in xukuumaddiisa ay dalkaasi ku soo jiiday maalgelin dhaqaale oo ka badan 5 trilyan oo dollar taasi oo ku tilmaamay horumar taariikhi ah. waxa uu ku dooday in tallaabooyinkiisa ay jawaab u yihiin si xun oo uu sheegay in Shiinaha iyo dalal kale ay Mareykanka ula dhaqmeen taasi oo hadda dhamaatay. dhanka kale dawladda Shiinaha ayaa ku dhawaaqday inay qaaday isla markaana ay sii wadayso tallaabooyin adag oo lagu difaacayo madax banaanideeda, amniga qarankeeda iyo danaha horumarineed ee dalkaasi. dhaqdhaqaaqa M23 ee ka dagaalama bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo ayaa si iskeed ah uga baxday magaalada istiraatiijiga ah ee Walikale taasoo ay ku sheegeen tallaabo nabadeed oo ka horeysa wadahadallo rasmi ah oo ay la yeelanayaan dawladda Congo 9 Abriil kana dhici doona magaalada Dooxa ee dalka Qatar. Walikale oo muhiim u ah isku xirka 4 gobol isla markaana hodan ku ah macdanta ayaa muddo bila ah martigelisay dagaalo culus oo u dhaxeeya M23 iyo ciidamada dawladda kuwaasoo sababay barakac kumanaan qof. ciidamada dawladda ayaa hadda la wareegay magaalada halka M23 ay uga digeen waxyeelo shacabka iyaga oo sheegay in ay dib ugu laaban doonaan haddii la sameeyo falal kacsan. wadahadallada Dooxa ayaa la filayaa inay horseedaan xal waara oo lagu soo afjaro colaadda ka aloosan bariga Congo iyada oo Qatar ay door weyn ka qaadatay dhexdhexaadinta. ugu dambeyntiina tababaraha Manchester United Robin Amorim ayaa muujiyay kalsooni weyn ka hor kulanka adag oo ay la ciyaarayaan kooxda dariska ah ee Manchester City. Amorim wuxuu sheegay in guusha ay tahay wax aad muhiim u ah isla markaana kooxda ay u baahan tahay inay samayso dadaal dheeraad ah si ay 3 dhibcood u hesho. wuxuu xusay muhiimadda uu leeyahay kulanka isagoo tusaale u soo qaatay sida uu ahaa jawigii Old Trafford kulankii ay la yeesheen Arsenal. Amorim wuxuu sidoo kale tilmaamay in kooxda uu tababaraha u yahay inay si joogto ah u muujiso niyad guuleed. waxa uu intaasi ku daray in guushii ay ka soo gaareen Victoria Pleasant ee tartanka Europa League aysan noqon karin sabab ay oga nastaan ama ay oga sabraan booska ay hadda kaga sugan yihiin horyaalka. intaasi ayaan saaxiibayaal ku soo afmeerayaa wararkii aad kala socoteen warbaahinta Horn Afrika. anigoo Liban Xasan ayaa idin waramayay nabadi.